waxaa dalka Koonfur Afrika ka socdo diyaargarowgii ugu dambeeyay ee doorashada guud taasoo dhici doonta 29 bisha May ee sanadkan. Doorashadan ayaa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee ka dhici jiray dalka Koonfur Afrika maadaama maxkamadda ay ka reebtay doorashada in uu tartamo madaxweynihii hore ee dalka Jacob Zuma oo lagu eedeyn jiray musuqmaasuq xoogan xilligii uu hoggaanka u hayay dalkan. Sidoo kale xisbiga haya talada dalka ANC oo ku dhawaad 30 sano maamulaya dalkan ayaa doorashadan wajahaya tartan adag. waxay la tartamayaan ku dhawaad 70 walow xisbiyada hadda ku soo xiga ee ANC la isdhihi kara fooda isdarayaan ay yihiin xisbiga EFF ee uu hogaamiyo Julius Malema iyo xisbiga DA. inta badan natiijada doorashada kadib waxaa dhaco banaanbaxyo ay ka dhashaan rabshado dhacyo boob loogu geysto dadka ajaanibta ee Soomaalida ugu horeeyaan. bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaan wax ka weydiiyay caqabadaha ay kala kulmaan doorashada iyo sida ay isugu diyaariyeen. ka haysta sharcigii wadanka weynaa oo dadka inay codeeyaan sanadkan ay u suurta gashay waxaan isleenahay codkayaga inaan wax ku bedelno ama wax ku raadino oo xuquuqda sida dadka iyaga ee Soomaaliyeed Soomaalida hadda Johannesburg xaafad aad balaaran ay degan yihiin. Soomaalida marka wax badan oo dawladii hoose wali kama qayb galin tii baarlamaanka iyo tii madaxweynahana uma wada xaaladeeda marka bal horta inaan anagii dhaxdeeyadii inaan soogaano oo inteen wadaniga kadib aan wax ka bedelno systemka xaafadeeda ka jira iyo kan sarana insha Allah kale waa qolo kastaba codkeeda waa way taqaana meesha geenayso. doorashadan waxay uga bedelaan kartaa dhowr arrimood. arrinka koowaad xisbigii talada hayay 30 sano oo xoogaa hadda amoodid inuu aad aqlabiyadii weyneed waagi u haysan jiray inuu xoogaa inuusan ka baqay inuu hoos uga dhaco oo ay kamid tahay caqabada ku yimid oo ay kamid tahay madaxweynihii hore hadda madaxweynaha ka horeeyay oo laftiisi gooni u baxay oo xisbi gooni iyo wax raadinaya inkastoo aan maxkamadda wali ma hayo warkeeda oo in loo ogolaado in kale oo maxkamadda ka joojisay inuu uu noqdo musharax xisbi marka wax badan oo hadda waxa jira oo xagga doorashadan way ka duwan tahay 30 sano ANC-na u xirmatay ayada lafteeda hadda waxay ku jirtaa olole culus si ku heleed kuraasteedii hore iyo waxa ay haysan jirto aqlabiyadda wadanka marka koleba waa isbedel baa socda isbedelka hadda socdana waxa lagu tartamayaa xagga dhaqaalaha wadankii iyo xagga sida hadda koronto la'aan xogaa aad noo dhibtayantan waxa kale oo jira hadda lafteeda ajnabi nacayb xogaa dad waxa jira ku online ay dhahay ajnabiga wadankii ka bato wax kasta naga qaadaya marka waxa soo dhan kulay way isgarab socdaan marka insha Allah waxaan isleenahay doorashada hadda dhowr cisho noo hartay sidaan isleenahayna kulay wax hadda dib oo hadda socdo ma aragno xisbiyada xogaa meelo qaarkood gobolada qaarkood xogaa way soo bursanayaan laakiin wax dib oo hadda oo gacan ka hadal weyn iyo amni xumaan ka baqayna ma jirto wadankana waa wadan dimuqraadi xisbiyadana waa xisbiyo tiro badan cabsi badan ma jirto dadka Soomaaliga iyo ajnabiga dawladtiga ma jirta xisbiga speaker hadii ku daba feelaan way ku faa'iideeyaan adduunka sidiisaba qolo kastaba hadda dadka aan la noolnahay wadankan waxa la Rainbow Nation waa dad kala duwan ku nool qolo kasta marka hal meel iskuma siideyso sidaan isleeyahay waxay fiirisaa hadba meeshii masaalix uga jirto waxaan ka hadlaynaa doorashada Koonfur Afrika doorashada mardhow 29 ka dhacaysa hadii Ilaahay raali ka dhigo Ilaahay waxaan ka baryaynaa mar walba doorasho dhacdo anagu dhibaatooyin haddaan Soomaaliland ama haddaan foreign mar walba dhibaatooyin waaweyn naga soo gaaran kacdoon iyo boob iyo wax soo dhaco marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in sanadtan kubay hore amal inay ka fiicnaato hadii Ilaahay raali ka dhigo marsaasaan dheelay tan labaadna Soomaalida hadii ay weydiisay Soomaalida ururkay badana xisbigay taageersan yihiin waxay taageersan yihiin insha Allah waxa badana anaga aan taageerna ANC oo xafladeen meelaha anaga aan xaflada ku qabsano aroosadeen markay imaadaan madaxdeena Soomaaliya ka imaadaan ayaga noo imaado ayaga meesha ka soo qayb ayaga meesha ka badana waa aragteen marka insha Allah Ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu doorasho wanaagsan ka dhigo insha Allah waana mahadsantihiin أصلاً رجينا إن دعوا سيارة عتنا كبيشان مي ورتو حرجينا إن شاء الله تعالى حسبي ومدى الصومالي حتى ركري لهن مارتو قوليو هذا الصومالي أنا وحنا يقوليو إسكات مارت حاجة دورشة أنت بدنا تغير ANC إلهي حكر رجينا إن شاء الله تعالى حسبي قاس وهرنتي فلسطين وحوين كموتشي إلى نتنياهو لكن محو هاي إن لقول حكم هو كريمنا لأنه يهاي marka hadaan nahay Jaaliyada South Africa
Soomaalidu codanaysa waxaan ku boorin lahaa in xisbigaas ANC codka la siiyo ilaahay idanka insha Allah tacaala doorashadana ilaahay maartay si nabada ilaahay nagu qabta hadii ilaahay idmo dibna dhicin insha Allah tacaala si khayr oo qurux badan ay ku dhacdo insha Allah tacaala way baan rajaynaa guul ururka ANC kaasoo ah urur oo wadanka South Africa xaniyo dhawaay oo walwiin qobadi way baan rajaynaa inuu soo guuleysado khaasatan madilka reeba warqabashada unin qobadi South Africa waa dawladda kaliya oo islaamka madii dhibaato deerta ama dhiblinjeysada oo ka dhiidiyaas oo ka hadalaas iyo ogtiin dhibaatada ka dhiidi Falastiin dawladda Falastiin dhibaato linjeysadii oo burburinta linjeysadii yahuud linjeysadii waa dawladda kaliya ka hadali oo dacwo ka jeyti maxkamadda adduunka dawladda South Africa iyo hogaamiyaasha marka dawladda South Africa hogaamiyaasha way balena guuleysada horna socda guulana siin rajayana لأنه حتى دولته إسلامك فلسطين أو البربرية أو الحسوقة وفيرسة هيان أو أنكوينين دولة سعودي عربية إيو مصر أنكوينين فيرسة هيان ما كهذا هيان ودولة كلية كحنون ستة كهذا اللي عبد الرشيد حسين كراش راضي هي تي في قشبل مقالة جوهانسبرغ دالكا كونفور أفريقيا